jecelna ay halkaan inaan ka soo jeedino taageerada aan u hayno jamaacada as-saadicuuna bil haqq. dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka keenay markii baraha bulshada ay ka soo muuqdeen kooxdiimeed la magac baxay as-saadicuuna bil haqq. dooda ugu badan waxay ka dhacday aaladda ugu isticmaalka badan ee Facebook, halkaas soo fariimo qoraal ah isu dhaafsanayeen culimada diin ka soo horjeeda aragtida kooxdiimeedkan iyo dad kale oo taageersan. majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kooxdiimeedkan cusub. Tagala waxa weeye dad hadda ku xiran jamaacoyin dibadda ah oo halka laga soo amrahayo oo hadda lahaa 40 sano ayaan aamusnayn isdiyaarinaynay hadda ayaan barnaamij soo dhignay dadka noocaasa waxa ka imaan kara hadda kadib maxay tahay amiirkooda iyo madaxooda Masar jooga muxuu u meeri doonaa muxuu soo amri doonaa hagee uu ku furi doonaa geedigan hadda bilowday hagee lagu furi doonaa waxaas runtii waa arrimo khatar weeyaan marka aad iyo aad ayaan fikirka ku dhisan gaalaysiinta uga soo horjeednaa qofkii dadka diin ugu yeeraya inay diinta bartaan inay diinta ku dhaqmaan waa shay furan laakiin gaalaatiina islaama midaas ma furna diinta barta waa furan tahay diinta lagu dhaqmo waa furan tahay cilmiga hala ziyaadiyo waa furan tahay amalka hala ziyaadiyo waa furan tahay wixii naga khaldan ansaxana waa furan tahay laakiin gaalaatiina Soomaaliya islaama arrinkaas ma furna meesha qawaaniinta iyo sharciyadoo dhan laga soo wada qaadanaya waa kitaabka Qur'aanka iyo sunnada nabiga. urdiimeedkan oo baraha bulshada soo dhigay muuqaal soconaya in ka badan 20 daqiiqo waxay ku sheegeen in ka badan 40 sano ay qarsanayeen aragtidooda laakiin hadda ay baahinayaan xaqa ah u dejinta sharciga iyo qawaaniinta. Sheekh Nuur Baruud Gurxan oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyay qaabka ay ku bilowdeen nus qarni ka hor urdiimeedyada noocan ah. nimankan takfiir horta nimankan waa nimankan u naqeen al-hijra wa takfiir nimankii dadka gaalaysiin jiray dhihi jiray annaga mooyaan inta kale oo dhan waa muslim waa shabaabkeenan oo hadda qoryo wadanin xagga caqiidada shabaabka waxba kuma kala duwana yani kaliganaa muslina kaliganaa diinta fahmayna intiina kale waxa tihiin lama arko horta macnuhu saas u fahma duruuftay ku abuurmeen waddanka Masar dhowr iyo kontonkii Jamaal Cabdinaasir kacaankiisa markuu qabsaday wadaadadii iyo culimadii diinta fidinayso xabsi ka buuxiyay wuxuuna oo la dhaqmay si aad u xun wuu dildilay wuu aybu ku diray qofkii oo nool buu ay dhinac ka cunay wuu cadaabay wax bini'aadam haddii lagaaga sheekay waxaadan xamili karin idaacadihiina hadda way haystaan dicaayad culimadii baa la dicaayadayn xabsigiina way ka buuxaan waa la karbaashi marka dhalinyaradii wadaadnimada loo xidhay ee ku jiray xabsiyada yaa su'aal isweydiiyey dadka sidan inoo galay horta ma muslim baa waa gaal diinta inagu haysta inagu dilay iyo shacabkan mudaaharaadi ee hal la laayo maxay yihiin ayaguna shacabku way mudaaharaadi oo waxay dhahayaan ilaa wala shuuciyada waa taqaanaan say shacabka ugu ciyaaraan siday rabaan u marsiiyaan gurbaan iyo bowbow iyo inta yarayda hanti wadaaga aan ahayn waad arki jirteen marka shacabkii baa la soo kicin waxay leeyihiin dadkii saa loo cadaabayay muslimiinta ah ee khiyaarta diinta loo haystay oo la cadaabayaba yaa iyaguna leeyihiin intay mudaaharaadaan dabbax ya jamaal jamaalow gowrac waa dadkii diinta u xidhnaa marka dhalinyaradii waxa su'aal bay isweydiiyeen meesha lagu cadaabayay dawladda sidan inoo gali ma muslim baa waa gaalo shacabkan le hal la gowracana maxay yihiin xugun degdeg way cadhoodeen ma ogta cilmi badanna ma laha xugun degdegay gaadheen waxay dhaheen waa muslim waa gaalo shacabkuna waa gaalo dawladduna waa gaalo marka kaligood baa muslim culimada Soomaaliyeed ayaa soo saaray baaq ka kooban 6 qodob kaasoo loogu digayo shacabka Soomaaliyeed inaysan qaadan aragtida urdiimeedkan. culimadu waxay ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan fakarka gaalaysiinta oo ay wado kooxdan iyo kuwa la mid ah. Aweys Maxamuud Julcawartiyan Muqdisho.